waxaa kaloo aan go'aaminay in wiiga soo socda aan bilaabi doono asteynta goobaha codbixiyayaasha oo hore loo soo asteeyey qaar badan oo ka mid ah ilaa 300 oo gooboodna waa la soo asteeyey oo waxaan rabnaa inaan dib u soo fiirino xafiisyada goobahaas iyo nambaro kale badan oo ku biiri doona saa la socotaan labadii sano ugu dambeysay dhulka Soomaaliyeed meelo badan oo waxaa jira hadda aad xor u ah oo shacbiga degan ee fursad u haystaan inay codeeyaan marka waxaa bixi doona wafdi ballaaran oo guddiga xibnahooda uu hogaamin doono shaqaalaha ay ka mid yihiin guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Soodimaha xirfadlayaasha ah waxay aadi doonaan goobahaas oo 300 oo goobood oo hadda aan hayno soo far oo hore loo sameeyey iyo qaybo cusub oo lagu biirin doono annaga nambarkeenu waxaan rabnaa inaan gaarsiino 800 oo goobood inaan geyno guddigan sharafta leh waxa ugu weyn waxa way qof walba Soomaali ah xuquuqdu u leeyahay inuu waxna dooran karo lana dooran karo inuu ka shaqeeyo waxaan isku dayaynaa meel alle meeshii munaasib noo ah amnigeeda aan gaari karno dadkooduna ay rabaan inaan gaarno insha Allah taala waxaan ka codsanaynaa shacbiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inuu nala shaqeeyo oo uu gacmo furan uga shaqeeyo niyadayadu iyo xoogayga aqligayagu waa inay dadka Soomaaliyeed ay gaaraan xuquuqdoodii codbixinta ah saa la socotaan waa 55 sano laga joogaa mar dadka Soomaaliyeed inay u dareeraan sanduuqa codbixinta waxaan rabnaa maanta hadalkaas ah 55 sano u dambeysay inuu baabao bishii Juun ay soo socoto Soomaaliya inuu u furmaan rabnaa weji cusub waa cusub inuu bariyo qof walba Soomaaliya waxaan rabnaa meeshuu joogo inaan sanduuqa codbixinta u geyno waxaan faraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo gudiga dibo inay nala shaqeeyaan wax allaali wixii taladooda waa noo furan tahay waxaan rabaa inaan labada qaybood maanta idila wadaagno inay maanta oo bishii January ay tahay 20keeda official uu furan yahay diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo inaan sabtiga soo socdo bilaabi doono inay wufuud u kala baxaan goobaha aan soo asteynay oo hore loo asteeyay codbixiyaasha iyo meelihii kale oo aan leenahay markaas waa muhiim in la gaaro intaas goolkaygu ah inaan idila wadaago